soo dhawaada midaan hooyada baadiyo ugu imaatay waxaan rabtay inay si farxad leh u soo dhaweyso way wada waxaan geysay carweyne lagu iibiyay dharka dumarka si dhar qurux badan ugu soo labisto hooyadeeda la gabadha masqusha waxay ka soo bixaysaa ayadoo mar qurux badan wato waxaan arkaysaa inay marada wato kale hooyada ay wato inay isla yaabatay muraadii taagantay inay isku leedahay dharkan adigu kugu qurux badan yahay maxaa mar hilweysay maamada u imaanaysa hooyo xeelada maradan oo kale adin lagu talagelin qof way ilaatay maxaa wadataa laakiin maamada waxay gabadha sheegaysaa inay ka xanaaqday xeelada adaa maradan lagu talagelin marana ku dooqay leedahay waxay soo qabanaysaa maradan oo jeedin xeelada marada xiro adig tana ku nuuraysaa midaan kale lagu talagelin iska suubtaa tag masqusha gabadha ayadoo yaaban ilaa hadda hooyadu waxay sameynaysaa la yaaban oo bixaysaa laakiin tan socota xabadii meeshii ka qiinaytaa qabanaysa waxay leedahay maradan adiga kuma qurxoon oo jeeda kuma qanacsanidi tan qaadatana ku nuuraysaa ay leedahay laakiin xabadii inay farxadeen marada ka soo qaadanaysaa naagtan ay siisay waxayna bilaabaysaa inay ku soo labisto hooyadu u imaanaysaa waxay leedahay hooyo way jeedaa marada soo gashay soo qurux ma aha aniga soo kuma qurxoon ay ku leedahay laakiin maamada waxay leedahay aniga marada ku siiyay maxaa mid kale gashanaysaa anaga mid ku dooqay dooqiga martid ma ay ku leedahay maamada waxay bilaabaysaa mid shaqaalaha meeshii qeynaysa marada kala dafto ee siisa gabadha inta bax marada soo gasho aniga taa ku dooqbaan mid kale ma qaadanaysaa ay leedahay la gabadheeda qajalaad inay dareentay marada hooyada soo qaadanaysaa wayna soo gashanaysaa way imaanaysaa waxay leedahay hooyo waa ku soo labistay ujeeda alaaka atana maamadu waxay bilaabaysaa inay gabadheeda faafaanayso ee marada ku qanciso waxay leedahay alla qurux badan maradana kala haystaa asaa mid kala qaadanaysaa ma aniga dooqiisa qurux badan soo muujeedid la gabadheeda ku qanci weynaysaa waxay sheegaysaa ayada xanaaqsanay meesha ka tagaysaa maamada karkeeda soo qabaysaa waxay leedahay hoo kaarkan lacagtada kala baxnay wax kale ma naga rabtaa atana maamadii gabadheeda waxay maatay guriga gabadheeda degantahay guriga waxa ugu soo horeeyeen gabadheeda qawlaasheeda waxay leedahay gabadheeda maanta aniga hadiyada fiican ku keenin ninka gabadha laltay waxay ku leedahay dhar qurux badan ku keenay muujeeda maradana ku keenay soo qurux badan tahay mariyay ay u diidaysa gabadheeda ay gabadhan hadiyada ugu dhigaysaa waxay leedahay adiga ayaa kugu talagalay waana adiga gashataa laakiin gabadhan way la yaabaysaa hooyadeeda oo gabar kale islaamid arka ay u diidaysiinayso mid laltay ninka qaba ay la yaabaysa gabadhan oo meesha orku maraysa xirada kala maxaa kugu dhacay waxay ku leedahay ma hooyada soo dhaweysay maxaa kugu dhacay adiga nooc kala talaga waxay leedahay waa soo dhaweey maasha Allah waxna igu ma dhicin korayso aysa laakiin way ka diimaanaysaa ayadoo qolka boogska akhrinayso waxay leedahay abay maxaa kugu dhacay saama haajin adiga dhan shib ayaa noqotay maxaa kugu dhacay marka hooyada aragtay waxay u sheegaysaa arrinta dhan oo dhaxmartay ayadoo hooyada u dhaxmartay meesha ayadoo sheekadii wada waxa soo galaysa maamada qolka waxayna ku leedahay maxaa isku siinay maniinaag isqaba isku maleysay macnaha markaas u dhageysaan aad ayay isku la yaabayaan waxay maamada ku hadlayso waxba kadib waxa la tagay miis qada maamadii gabadheeda ninkeedii gabadha la taayo meesha ku wada qadinay waxa imaanay gabadhii maamada dhashay waxayna keenaysaa raashin waxay soo fadhiisaysaa miiska waxayna ku leedahay maamada maxaa ka qaldan dhankaada maxay tahay ninkaada iyo hooyada meesha badarkooda cunay maxaa u soo fadhiisanaysaa adiga wana meesha ka cadaa jikada ku cuntaa laakiin mid gabadhan qawo jawaab wuxuu ku leeyahay qofta waa naagteeda adiga ay ka fiican tahay dhaqankaas waa dhaqan baadiye dhaqanka magaalada hal meel ayaa wax lagu wada cunaa muuqaalkan maanta meeshan ku yaada meeshan soo gaartay fiideo walaagtar fulon soo dhaada wali fulon soo dhihin